gudiyada wada hadalka u qaabilsan Somaliland iyo Khaatumo ayaa waxa maanta ay soo bandhigeen heshiis ay ka gaareen wada hadallada u dhaxeeyay labada dhinac. heshiiskaas oo lagu soo bandhigay hotelka Ambassador ee magaalada Hargeysa ayaa waxa si rasmi ah u akhriyay wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland Dr. Saad Ali Shire. lagu heshiiyay qodobadan soo socda in Somaliland iyo Khaatumo ay ku tuntunsadaan sidii isafgarad buuxa loo wada gaari lahaa, in la wada qorsheeyo lagana wada shaqeeyo sidii loo wada heli lahaa Somaliland loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad, maamul wanaag, xaq dhowrista xuquuqul insaanka, ku dhisanna diinta islaamka oo muwaadiniinteedu midna ku ahayn marti ee ay u wada siman yihiin. in dastuurka Somaliland la furo si loo xaqiijiyo awood qaybsi sugan oo cadaalad ku dhisan oo laga sameeyo madaxda golayaasha fulinta, sharci dejinta, garsoorka iyo hay'adaha dawliga. in la sameeyo maamul daadejin heer gobol, degmo iyo magaalo lana qeexo mid walba awoodeeda. in shir dambe la isugu yimaado 10 bisha July laguna qabto magaalada Burco si loogu dhameeyo wixii qabiyo ah, lagana tashado qaabkii iyo hanaankii loo qaban lahaa shir loo wada dhan yahay. aad buu maasinta horta intaa way qodobadu aan ku heshiinay. wufuuda Khaatumo oo hogaaminaya Dr. Ali Khaliif Galeyd iyo sidoo kale dhanka Somaliland oo ay xubno ka ahaayeen wasiirka amuraha dibadda, gudoomiye xigeenka xisbiga Kulmiye iyo sidoo kale gudoomiyaha xisbiga Ucid iyo wasiirka wasaaradda beeraha. markii qodobada uu akhriyay wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland waxaa sidoo kale warbaahinta la hadlay gudoomiyaha baarlamaanka ee Khaatumo Maxamuud Sheekh. waa laga maarmaan go'aamadan ku qaadanayaan dadkay kula noqono ka wacyigelino ka tashano dhibaatooyinka maxaa inagu caynkan maxaa ka nagu dhawaan haddii Ilaahay idmo lagu qaban doono Burco shirkaas haddii Ilaahay idinkiisa ay ku noqoto loogana sii gudbi doono sidii marba tatawur loo sii gaari lahaa iyo maxaa horumar. waa nasiib wanaag bay tahay runka loo eego. intaasi kadibna waxaa goobta shirka ka hadlay gudoomiyaha xisbiga Ucid Injineer Faysal Cali Waraabe iyo gudoomiye xigeenka koowaad ee xisbiga Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed. heshiiskan wuxuu ahaa heshiis ilaa bishii December socday baa alxamdulillaah rabbil caalamiin. maanta waa inaga soo ururinay waxaan ay hubnay ay heer Khaatumo rabeen ee anagu rabnaa qof kasta rabo waxa weeye Somaliland la wada leeyahay oo dadku u siman yahay. Khaatumo waxay ahayd daaqad bannaan oo Somaliland laga soo ximaanteeda laga soo geli lahayd baheed. daaqadda way naga soo xidhan Ilaahay khayr ha siiyo. waxaan jecelahay wixii harsanaa inaynu dhammaystirno. ragga dadka halkaa fadhiya odayaashaas oo dhan waxay u baahan yihiin nabad bay u baahan yihiin. wada hadalladii Khaatumo iyo Somaliland bilowgii ilaa iminka maraaxiladii ay marayeen marba halkii ay marayeen baad ku garanaysaanoo go'aanka ka dambeeyay uu kasii wanaagsanaa. waxaan anigu ku baaqayaa dhinac kasta oo arrintani ay saameyso deegaamada ay odayaashani ka socdaan iyo kuwa kalaba in aynu arrintan sidaynu dhannahay aynu u bambaanino. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan culimada iyo madax dhaqameedka degmada Buuhoodle oo goobjoog ka ahaa shaacinta shirkaasi go'aamada ka soo baxay. ha islaahiyeen wixii dhexdooda yaala islaahi waa wadaan Ilaahay u barakeeyo subxaanahu wa ta'ala. qofka muslimka waxa laga rabaa sabir. sabirku waa shay aad iyo aad u weyn. labada dhinacba insha Allah hadaan culimadana waxaan ku boorinaynaa sabirka inma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisaab. wada hadallo sabir buu u baahan yahay, islaahu sabir buu u baahan yahay, socodku sabir buu u baahan yahay, soo jeedku sabir buu u baahan yahay. inaad sabirka ogaataan waman yatasabbar qofkiisa sabir siiyo oo naftiisa sabirka bara yusabbiruhu la ilaha ba sabir siiyo subhanahu wa ta'ala.
arrintaa waxaan la hadlayaa dadka dadweynaha dhulbahante ee dibadda ku maqan ee khaatumo nin dameeradeed ka degay meel uga telefoon buu waayey war Somaliland baynu la heshiino heshiiska hala taageero oo hala isdhinac taago waxba lama lahaan shalay aan wax la yeelano ninka cali khaliif baa abuuray in wax la yeesho arrinta hala taageero haddii qofku doonayo maalinba inuu qof yimaado oo ay sidaa doonay Dr. Cali Khaliif Galeyd hogaamiyaha Khaatumo ayaa isaguna waxa uu soo dhaweeyay heshiiskaasi maanta lagu gaaray magaalada Hargeysa. Rome was not built in one day. Ama Hargeysa was not built in one day. Bilow fiican baan maraynaa. Wadahadaladana mudday soo socdeen. Arrimo siyaasi ah la isku hayaa, xal siyaasi ah loo baahan yahay, ku dhiirasho loo baahan yahay, leadership baa loo baahan yahay. Arrintan waa arrin culus weeye, ummad dhan aayaheedii iyo mustaqbalkeedii iyo taariikhdeediiba waa tahay in laba doodo. Annaku diyaar baanu u nahay. ilaahayna waxaan ka baryaynaa gidigeenba caqli iyo xikmad dii aanu ummadan ugu horseedi lahay nabad iyo nabad ku wada noolaasho iyo wax wada yeelasho sinaan iyo cadaalad ciddii filaysa in hoostana la gelinayahay waanu cid marti u noqon war cidna marti u noqon mayno si cad baynu ama ku heshiinaynaa oo waxaan wada leenahay oo wada banaynaynaa oo wada dhisaynaa ama si cad baynu ku kala tegaynaa waxayna hadda u eg tahay si cad in lagu heshiin doono bilow fiicanna waa maraynaa bisha 10keeda Julayna burco boorweyntii hore ahayn laakiin dhir badan oo dhulka lagu beeray aynu ku soo dhawaano hashamadii isma yeesho waxaynu u baahanay waa inoo muuqdaan Somaliland waxaan qabaana haddaynu heshiino oo wax wada yeelano oo kalsooni bilaabanto اعتراف لوضع يا عقلو قرقورتابا وككرينا ولا ميشينا اللي ينوبو إيمانيا ايش اللفتي ذا يا اللي ينوبو إيمانيا الدين ليسو ذا يمادو وحيدوكن كوذا نوران شيروداني اي مدوبان ورنو حنقبا اعتراف يهورم مر يقدرين ينو كهران كرنا عبد الشكور ضيب محمد هون كيبل تي في هرقي